musharax Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayaa Garowe u yimid si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka Puntland Dr. Saciid Cabdillaahi Dani. waxaa gegida diyaaradaha ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Puntland, haween, dhalinyaro kuwa oo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta Cilmooge. qaar ka mid ah bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweynta Cabdullaahi Cilmooge Xirsi ayaa dareenkooda sidaan u cabiray, muujiyana in Cilmooge uu yahay hogaamiye jecel dadka iyo dalkiisa. maanta inaan soo dhaweyno mudane Cilmooge oo taariikhdiisa la yaqaano, nin taariikh ku leh Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya jeneraal soo ahaan jiray, musharax 2017 soo noqday federaal, haddana ah musharax madaxweyne ee Jubbaland, xisbiga ah hogaamiyaha xisbi qaran ma ahan xisbi maamul goboleed xisbi qaran. sharaf weyn noo tahay in maamul ku soo dhaweyno Boosaaso oo ah magaalada ganacsiga ee Puntland. dhammaan sida u soo dhaweyseen dadka qeybihiisa kala duwan ee haween iyo rag bale waa idinkaga mahadcelinaynaa oo nagala qayb qaadateen. asagana waxaa leenahay ku soo dhawow rugta ganacsiga Puntland, ku soo dhawow xarunta xisbiga ee gobolka Bari Boosaaso, ku soo dhawow magaaladaadii, ku soo dhawow dadkaagii iyo deegaankaagii Puntland. mudane sharaf iyo guul gudoomiyaha xisbiga xiis ahna musharax madaxweyne Jubbaland 2019 runtii in badan baan sugaynay gudoomiyaha oo qorraxda u taagnayn. waxaan ugu taagnayna waa taageerada aan u hayno xisbiga xiis. waxaa muujinaysaa reer Boosaaso kala badh inay yihiin boqolkiiba inay yihiin taageerayaasha xisbiga xiis. sidaa darteed gudoomiye waxaan leenahay ku soo dhawow magaaladaadii, ku soo dhawow shacabkaagii. runtii dib aas ka warsan doona xafladahan qabsan doona isku wareysan doona oo xisbiga xubnihiisa iyo waxa kaga hadli doona haddii la yiraahdo taageerayaasha xisbiga. marka hadda waxa muhiimadda hadalku waxa weyn aan soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow. kasbashada dadka iyo kalsooni ka abuuridda waa mid dareenka qofka ay ka timaado. tani waxay dhab u xaareysaa in Cilmooge uu yahay hogaamiye jecel dadkiisa iyo dalkiisa. Cilmooge oo gabagabada soo dhaweynta ka hadlay ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa aad u bisil isla markaana xilligan ay u baahan yihiin samata bixin. waxa uu fariin u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed. aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa xisbiga xiis gabdhaha quruxda badan, wiilasha diyaar garowga iyadoo kulul waliba aad magaalada igu timaadeen ka baxsan banaankeeda. waa idinka mahadcelinayaa. Puntland waxaa lagu yaqaanaa hooyadii Soomaaliyeed weeye, waxaa lagu yaqaanaa wadaniyad, waxaa lagu yaqaanaa inay ka horeyso. nin baa wuxuu yidhi wuxuu ahaa Mahiga baan waxaan u imid isagoo la kulmay Minneapolis Minnesota group reer Puntland. markaasuu wuxuu leeyahay aniga markay ma yaqaan. markaasuu yidhi Puntland waxaan idin sheegayaa wuxuu yidhi dadka waxay ka horeysaa 20 sano waay baa leeyahay. wuxuu yidhi dadka kale markay gujir yihiin oo gurguuranayaan iyadoo waa 20 jir orday oo kale. noo sharax baan ku niri. wuxuu yidhi haddaad tagto Australia iyo Maraykan iyo Sweden iyo London intaba waxaad ugu tegaysaa koox rag iyo dumar oo reer Puntland oo habaysan oo caruursan oo ka hor timaada oo danaha Puntland ka hadlaya, malaha community kale. marka waxaanu imid laba shay inaan hal dhagax ku dilo laba shimbirood. waa ballansanayn xisbiga madaxdiisa, waa ballansanayn soodurka waa ballansanayn inaan u imaado. waxaan ka codsaday muddo hore aan ka codsaday dhowr bilood ka hor in doorashadu dhammaato. horta doorashada lagu kala baxo saaxiibo badan baan ku leeyahay
imaatinkayguna waxaa laga yaabaa in la arko inaan qof ka mid ah marka waxaan ku yidhi ha dhammaato waayo niman badan baan saaxiib laha madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dinac ku guuleystay oo saaxiibkaya casumaad baan ku imid muxuu ahaa inaan ka soo qayb galo xafladii caleemasaarka haddaanu local baan ahayo xaafad baan degay ma ahayn dadka hoteelka degay marka waxaan ahaa see lagu ogaanaya inaad tahay local qof oo ka tirsanay Puntland haddana waxa weeye waa soo daraafgareeyey 500 kilomitir waxaan u soo maray oo anigu weliba waardiyaan oo wadan oo keligay ah inaan u muujiyo bulshada Soomaaliyeed amnigu wanaagga uu leeyahay waxaan u maleynayaa 30 sano ka hor baa igu dambeysay anoo jidkaan ku daraafgareeya qofku markuu amni haysto waxa weeye caanuu gadanayaa caanaha wataa hadda caanuu gadanayaa malab buu gadanayaa dariiq ka gadanayaa muxuu ahaayey timir buu gadanayaa shidaal buu gadanayaa baahida dadka khudaar ama beer wax walba ee la soo dhigay dariiq in magaalo ahayn oo dariiq lala taagan yahay balada fiirso oo aan talaagad u baahnayn oo ogtahay meesha ka yimaadaan inay meel fog ahayn ayuu ka iibsanayaa shacabka ayuu ka iibsanayaa dadkaas taa waxaa lagu helaa oo qura meel amni ah marka waxay mudan tahay maamulada kale ee dalka ee nabadiidku ka buuxo inay ku daydaan Puntland nabadda ay haysato ay haystaan ay la coloobaan muxuu ahaayey nabadiidka dalkoodana ku soo dabaalaan inuu amni noqdo haddaan u soo noqdo xisbiga xiis waa guuleysanaynaa guuleysta sanadkan waxa weeye hawsheenu waa hawl fiican baa ina sugaysa mid waa Jubbaland sida aad u sheegteen oo aanu ahay musharax midna waa xisbigii sanadkii ugu muhiimsanaa 2019 waayo 2020 waxaa la gelayaa doorasho qof kastoo inaga mid ah ama raadinaya golo shacab ama raadinaya degmo ama raadinaya barasaab ama raadinaya wax kale inuu council inuu noqdo xisbi buu ku gaadhaya 4.5 kuma gaadhayo marka boosaaso waxaan ogahay inay tahay xarunta ganacsiga ama commercial city oo Puntland malaweyn dalka ugu waaweyn inay ka mid tahay magaalo xeebeed tahay marka idinkoo maqaamkaas iska leh waxaan rabaa in aad ka shaqaysaan sanadkan xoog saartaan sidii aynu u gaari lahayn goolka aynu raadinayno oo ah in aynu xisbiga xiis uu guuleysto oo uu ku guuleysto qaybaha ugu ballaaran uu noqdo muxuu ahaay kaga guuleysto Puntland haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala aad doorashada marka 2020 ee madaxweynenimada waxaa lagu tartamayaa xisbi murashaxiinta baarlamaankuna sidoo kale wixii kale waxaan ka dhiganaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inagoo kulan dhado isugu nimaadna haddii ilaahay yidhaahdo si u dhaqsaha badan berri oo kale aynu wada qadayno yaan ku dhammaysanayaa maadaama aad anaguna safaranahay idinkuna aad isu muxuu ahaayey hawsheen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa muxuu soo dhoweynta sharafta leh ee idiga hor timaadeen magaalada banaankeeda aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan u dhiganaa assalaamu calaykum xisbiga xiis ayaa ku sii baahaya qaar ka mid ah gobolada dalka waxa ayna taasi tusinaysaa in xisbiga xiis uu u furan yahay qof walba oo Soomaali ah